halkani waa waxsan sidee media fadlan haddii ay tahay markaa kugu horeysay subscribe inoo saar videogana like saar oo share comment ka bixi videoga waxaan ugu hadli doonaa cudurka coronavirus ee isla markaas saameeyay adduunka oo dhan waa maxay coronavirusyadu waa fayrasyo ka kooban bahwadaag balaaran oo xanuun ku keeni kara bini'aadamka ama xayawaanka cudurkan cusub ee coronaviruska ee hadda faafaya wuxuu ku bilaabday magaalada Wuhan ee ku taala dalka Shiinaha waxaana si gaar ah loogu magacaabaa COVID-19 dadku xanuunkani ku dhac waxaa laga yaabaa in lagu arko calaamado xanuun oo la xiriira dhinaca neefsashada sida qufaca iyo neef qaadashada oo ku yaraata calaamadaha kale ee cudurkani lagu garto waxaa ka mid ah qandho muruqyo xanuun madax xanuun riiraxyo iyo shuban sida laga soo xigtay xarunta kontaroolka iyo ka hortagga cudurka Center for Disease Control and Prevention ama CDC sidee ku faafaa COVID-19 ama coronavirus cudurkan waa mid dadka isku gudbin karo gaar ahaan haddii ay dadku aad isugu dhow yihiin ama ay isugu jiraan 6 taako wuxuu ku faafi karaa dhibicyo aad u yar sida candhuufta ama xaakada oo ka soo baxa habdhiska neef mareenka qofka xanuunsan marka uu qufaco ama hindhiso dhibcaha yaryari waxa ay dadka kale ee qofka jiran u dhow ka geli karaan afka ama sanka dadka waaweyn ee xaalada caafimaad oo kale awal qabay ayaa xanuunkan aad ugu nugul goorma ayaa dhakhtar arki karaa haddii aad dareemayso in uu ku soo hayo cudurka COVID-19 ama aad isku aragto calaamadaha sida qandho qufac iyo neefta oo kugu yaraata waa inaad dhakhtar wacdo waxaana laga yaabaa in cudurkaani laga baaro ogow haddii uu kugu dhaco COVID-19 waxaa laga yaabaa inaad calaamadihiisa isku aragto inta u dhaxaysa 2 ilaa 14 maalmood iska baar cudurkan haddii aad 14 maalmood ee la soo dhaafay u safartay mid ka mid ah wadamada uu cudurku gaaray ama aad la kulantay bukaan cudurka qaba sidee ayaa iskaga difaaci karaa cudurkan dadka kale ugu ilaalin karaa si aad iskaga difaacdo cudurkan isla markaana uga ilaalisid dadka kale samee talooyinkan soo socdo ku dhaq gacmahaaga badana saabuun iyo biyo oo yaraan 20 second haddii aan la heli karin isticmaal gacmo nadiifiye 60% alcohol ah ama ka weyn oo isticmaali nadiifiyaasha caruurta ka yar da'da 2 sano ah iska ilaali inaad ku taabato indhahaaga sankaaga ama afkaaga gacmo aan dhaqnayn iska ilaali inaad la xiriirto dadka jiran joog gurigaaga inta aad jiran tahay iskana ilaali xiriirada dadka kale afka iyo sanka ku dabool masar ama isticmaal tiish marka aad qufacayso ama hindhisayso qaado awaamiirta ay soo saartay wasaaradda caafimaadka